wuxuu dhowaan ka bixi doonaa raadiyaha kuu dhow waana ku celis qaybtii koowaad ee sahanka nolosha. burcadbadeed oo xagguu joogaa walaal? waxaa la dhahaa guhaad. waxaan maqlay in 8 sano xabsi uu ku jiray oo hadda laga soo daayay. rabbiyow, ma 8 sano? haa, dirir wuxuu maqan yahay 6 sano. dirir wuu nool yahay soo maahan? jacayl aan xuduud lahayn. burcadbadeedkaasi waxba kuguma laha. wuxuu kaa tegey adigoo uur leh oo uu burcadbadeed noqday. waa in aan runta ogaado. xaawakiin dab baad ku ciyaaraysaa saaxiib. caasinimada noloshu waxay leedahay cawaaqib. fadlan mooga dilkayga dhaaf. jooji ha garaacin, adigu yaad ismooday. ninkeedii ma tiid, aniga ayaa qaba. burcadbadeedka waxaa ku adkaan doonta in bulshada uu dib uga mid noqdo. haa, marka 6 sano intaad maqnayd ayaad rabtaa wax walba sidoodii hore inaad ugu soo laabato soo maaha? ma dhici kartaa in burcadbadeed la cafiyo oo dib loo aqbalo? aniga ayaa aabbahooda dhabta ah weligayna ahaan jira. hadda waxaan u soo laabtay inaan carruurtayda u sheego inaan aabbahooda dhab tahay aniga aan ahay. war yaa burcadbadeed yahay haddaad taqaanno waxa kuu ron reerkayga ka agdheerow. haddii kaleeto xabsi ayaan dib kuugu celinaya oo dhibaato ku mudato. la soco ku celiska qaybta koowaad ee riwaayaddeenii xiisaha lahayd ee raadiyaha ee taxano ahayd sahanka nolosha jimco kasta saacaddu markay tahay 2:15 galabnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobollada dhexe iyo raadiyaha SBC. ha moogaan inaad fariin qoraal gaaban noogu soo dirtid nambarka 354 oo nala wadaag aragtidaada ku aadan bandhigga.